booliska gobolka Maarseedka ee dalka England ayaa xaqiijiyay inaysan jirin wax warbixin ah oo loo soo gudbinaya oo ku saabsan in baska Barcelona la xaday xilli warar xan ah la isla dhaxmarayo baraha bulshada. Kooxda reer Catalonia ayaa ka soo degatay England ka hor kulanka caawa ee lugta labaad ee semifinalka UEFA Champions League waxaana ay degeen hotelka Hilton lagu magacaabo. taageerayaasha Liverpool ayaa Twitterka ku soo qoray xalayto inay arkeen baska kooxda Barcelona oo si waali ah loogu wado aaga lagu magacaabo Vaza ee gobolka Maarseedka. wararka xanta ayaa bilowday kadib markii qoraalkan la soo dhigay Twitterka miyay Barcelona joogaan hotelka Hilton haddii ay sidaas tahay waa in uu qof u sheegaa in baskooda la dhacay. mid kale ayaa yiri waxaan hadda joogaa Masis waxaana arkay baska Barcelona oo wadada maraya waxaana uu shil gali rabay ku dhawaad 15 jeer. dad kale ayaa iyagana sheegayay inay arkeen baska oo meel kale maraya laakiin ma jirin sawiro cadeynaya dhacdadan iyo booliska oo xaqiijiyeen inaysan helin wax war ah oo ku saabsan bas la xaday markii la xiriiriyay xalay xilli dambe.